I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, waxaan ku fikiray 21 maalin ee soo socota. Bedelkii aan subax walba soo kici lahaa oo aan ku qaylin lahaa. Yelling waxa waa qaylin ina cod dheer wax ku dhahdid. Mom, please don't forget to make my bed today. Hooyo fadlan ha hilmaamin inaad sariirta igu gashid maanta. I thought I'd do it myself, day by day. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima. Maanta waxaan sharxi doonaa video TEDx gabar ka sheekeynayso how long it takes to change your life. imse qaadanaysaa inaad bedeshid noloshaada. Inta video bilaabin ka hor fadlan hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir channelka subscribe dhee videoga like garee oo share garee asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Englishka. Haddana aan bilaabno videogeena. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change? Have you ever thought to yourself before going to sleep? Weligaa ma ku fikirtay ka hor intaadan seexanin? Tomorrow is the day I'll change. Beri waa maalinta aan isbedeli doono. I'll change waxay ka dhigan tahay I will change. Waa la soo gaabiyo waxay noqotay marka I'll change aan isbedeli doono. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning. Beri waa maalinta aan subaxda aroortii soo kici doono. Get up hurdada inaad kasoo kacdid waay. Earlyna waxaa waay xilli hore. Have a healthy breakfast. waan cuni doono quraac caafimaad leh. Eat a breakfast oo ah inaad cuntid quraacda waxaa ku bedelan kartaa have a breakfast oo ah inaad quraacda cuntid. Labadan waa isku macno. Go for a morning jog. Breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be. The best version of myself. Go for a morning jog. Aanu bixi doono socodka subaxdii. Jog waxaa la socodka subaxda la sida la socdo. Breathe fresh air. Aan ku neefsan doono hawo nadiif ah. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be. Beri waa maalinta aan iskugu bedeli doono qofka aan rabo inaan noqdo. The best version of myself. Versionka ugu fiican ee naftayda. Yacni sida ugu fiican ee aan noqon karo. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Well, change doesn't come easy. Hagaag, isbedelku kuma imaado si fudud. You have to incorporate certain habits in your life. Waa inaad ku soo dartaa caadooyinka qaar noloshaada. Incorporate waa sida include oo kale oo ah wax in wax laga mid dhigo ama lagu soo daro. That will eventually lead to you becoming the best version of yourself. Taasoo ugu dambeyntii kugu hogaamin doonto inaad noqotid versionka ugu fiican ee nafsadaada. Lead waa hogaamin, halka leaderna ay tahay hogaamiye. Eventually waxa waaye ugu dambeyntii. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. You'll also have to eliminate certain habits. Sidoo kalena waa inaad cirib tirtaa caadooyinka qaar. Eliminate waa cirib tirid ama wax in meel laga saaro. That are hindering your path. Kuwaasoo carqalad ku ah wadadaada. Hindering caqabad ku ah your path wadadaada. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? How long will it take you? Imise ayay kugu qaadanaysaa to form a new habit inaad samaysatid caado cusub or get rid of an old one ama aad ka takhallustid mid hore. Get rid of ka takhallusid. Haddaba adiga ayaan ku weydiinaya daawade. Is there a habit you would like to get rid of? Waxaan sugaa waa jawaabtiina qaybta komentiga. Sidoo kale nala wadaag if there is a new habit you would like to form or adopt. Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Most people will tell you it takes exactly 21 days. Inta badan dadku waxay ku sheegi doonaan inay qaadan doonto sida xaqiiqda ah 21 maalin. For a person to form a habit or get rid of an old one. Si uu qofku u samaysto caado ama ugu takhalluso mid hore u jirtay. I remember once in high school. Mar ayaan xasuustaa dugsigayga sare. Once waa mar. Intii aad dhihi lahayd one time waxaa la isticmaalaa once. Intii aad dhihi lahayd two times waxaa dhihi kartaa twice. Tusaalahaan haddii qof uu ku weydiiyo how often do you watch a movie? Intii aad dhihi lahayd hal mar ayaan daawadaa ama laba mar waxaa leedahay I watch it once a week. Isbuucii mar ayaan daawadaa.
ama twice a week isbuucii 2 mar ama thrice a week isbuucii 3 mar and so on. One of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. One of my teachers told me, mid ka mid ah macallimiintayda ayaa wuxuu ii sheegay, it takes exactly 21 days for me to form a habit. Si aan u samaysto caado cusub waxay igu qaadataa 21 maalin. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Waxaana u maleeyay tani inay ahayd fursadayda aan ku noqon lahaa bed maker. Bed maker waxaa lahaa qofka sariirta goglo. luqadda Englishka to make a bed waxaa waa in sariirta la goglo. Soo qofkii sameynaya shaqadaas wuxuu noqonayaa bed maker, qof sariirta gogla. Salaam waxaa dhihi kartaa, when I wake up in the morning, the first thing I do is to make my bed. Markaan hurdada ka soo kaco subaxdii, waxa ugu horeeya aan sameeyo waxaa waaye inaan sariirteeda goglo. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, Mom, please don't forget to make my bed today. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, waxaan ku fikiray 21 maalin ee soo socota. Bedelkii aan subax walba soo kici lahaa oo aan ku qaylin lahaa. Yelling waxaa waaye qaylin ina cod dheer wax ku dhahdid. Mom, please don't forget to make my bed today. Hooyo fadlan ha hilmaamin inaad sariirta ii gogashid maanta. I thought I'd do it myself. Day by day. Early in the morning. 6 a.m. Even on days I was running late. I thought I would do it myself. Waxaan ku fikiray inaan aniga sameeyo. Day by day. Maalinba maalinta ku xigta. Early in the morning. Subaxda aroortii hore 6 a.m. يعني 6 subaxnimo ama 12. Even on days I was running late. حتى maalmo aan daahaye. Run late waa daahid. I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. I got up every morning and I made my bed. Waan soo kacay subax walba waxaana goglay sariirtayda. And I hated every second of it. Second kastoo ka midana waa nacay ama ilbiriqs walbo ka midana waa nacay. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, Mom, please don't forget to make my bed today. I quit. And by day 22, maalintii 22aadna, I opened my eyes, waxaan furay indhahayga, and the first thing I did was, waxa ugu horeeyo aan sameeyno wuxuu ahaa, say, Mom, please don't forget to make my bed today. Waxa uu ahaa inaan dhahay, hooyo ha iloobin inaad sariirtayda ii gogasho maanta. I quit. Waan joojiyey. Quit waa sida stop oo kale. And of course, that was expected. I do not exaggerate. And of course, that was expected. And طبعاً taasina waxay ahayd wax la filanayay. Expect, filasho. I do not exaggerate. Ma ka badbadiyo. Exaggerate, ka badbadin waay. If I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. If I say that this 21-day theory is the most famous myth, mana ka badbadin ayay leedahay haddii aan dhaho fikradda ah 21 maalin, yani in caado lagu samaysan karo, inay tahay khuraafaadka ugu caansan. Myth waxaa waaye khuraafaad ama dhaqamo dadka ay aaminsan yihiin laakiinse run aanan ahayn. In the world of self-development, ee caalamka horumarinta nafta. Yani waxay leedahay fikradda in 21 maalin caado lagu kasban karo waxaa waaye khuraafaadka ugu weyn uguna caansan ee caalamka horumarinta nafta. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from. Let's dive a little into our theory. And wax yar theorygeena hore usii galno. Dive in sida saxda waxaa waaye quusasho, in biyaha lagu quuso, laakiin markii mawduucyada laga hadlayo sida waa let's get into it camal waay. To understand where the number 21 came from. Si aan u fahanno halka uu ka imaaday tirada 21. And the reasons for its spread in self-developmental books and courses. And the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Iyo sababaha ay ugu faaftay buugaagta horumarinta nafta iyo koorsooyinkeeda. Reasons waa sababo, waa jamac. Spreadna waa faafid. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s. Dhakhtarkan loo yaqaano Dr. Maxwell Maltz
waxa uu ahaa dhakhtar ku takhasusay qaliimada qurxinta 1950 when he began noticing a strange pattern among his patients. Markii uu ogaaday pattern waxa la wax nidaam ku socda among his patients ee bukaanadiisa dhexdooda uu ku arkay wax yacni ku soo laalaabtay. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. For example, in a nose job, tusaale ahaan qaliinka sanka. Nose job marka ma dhahayno job shaqo maahan markaan in a nose job waxa la qaliinka sanka. He saw that the patient took exactly 21 days. Waxa uu arkay in bukaanku ay ku qaadatay 21 maalin. Exactly marka la waxa waxna kuma darsano waxna kama jirno. Yani 21 maalin kuma darsano maalinna kama reebno. To get used to start seeing his or her new nose. inay la qabsadaan ama ay bilaabaan inay arkaan sankeeda ama sankiisa cusub. Get used to la qabsasho. Saalaan haddii uu qofku dhaho the food is so spicy today. Cuntadu maanta aad ayay u kulushahay kuleelka basbaaska. Waxaa dhihi kartaa it's not that spicy for me. I get used to it. Kuleel saas ilama lahan waan la qabsaday. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, sidoo kale wuxuu ogaaday haddii patient gacan ama lug laga gooyo, amputate, goyn, the patient would acknowledge the new feeling of their new limb. Bukaanku wuxuu fahmi doonaa dareenka xubinkooda cusub for exactly 21 days, 21 maalin kadib. Before getting started to get used to their new condition. Ka hor intaysan bilaabin inay la qabsadaan xaaladooda cusub. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. Dr. Maltz published his theory in a book. Dhakhtarku wuxuu fikradiisa ku daabacay kitaab ama book that went very famous in that era. Kaasoo aad caan u noqday xilligaas. That era, xilligaas. And sold over 30 million copies. Wuxuuna iibiyey in ka badan 30 milyan oo koobi ah. And here, the conflict started brewing. And here, the conflict started brewing. Halkan ayayna ka bilaabatay in doodu ay sii hormarto. Conflict waa dood ama khilaaf, yani in wax la isku khilaafo. Brewing markan waxaa leenahay waa sida develop oo way horumartaa leenahay. Si kalena waa loo isticmaali karaa. Tusaale waxaa dhihi kartaa he is brewing a cup of tea. Wuxuu diyaarinayaa koob shaaxa. Qaab kale loo isticmaali karana way jirtaa. Haddii aad taqaanid nagula wadaag qaybta commentiga. Anyways, videogeena maanta meesha ayuu ku egyahay. Fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir channel, subscribe video like gray. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.